السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناكسن ملكس أجوبتان. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا ذي القف الله اللي هو سيد محمد عبدي وحنقصنا هاي مصر إيجيبت كارهان القاهرة. وحنا كنا نجوبنا حول شقو. أدبر لما سنتين صومالي ملكس أجوبتان وحلا سعتان من بدنبا وحين يسوي مدة شركة الشقة اللي مكون نهوش ون لايف. marka waxyaabo badan baa runtii qabsoomay videoan dib ugu noqon karo taariikhda waxa aan soo qabanay kaliya waxaan rabaa inaan dadka u sheego horta midda koowaad shirkadda la yiraahdo One Life waa shirkad ku dhisan sharciga waa shirkad sharciyeysan macnaha taasan ka wada waxayna leedahay xafiiskeeda wuxuu ku furan yahay sharci qaybta One Life marka shirkadda maaragtay One Life uu sharciyeysan yahay una shirkad registreysan qaybta deal shakerka sidoo kale waxay ku shaqeysaa sharci waa sidoo kale shirkad sharciyeysan xafiiska shirkadda sidoo kale walaalayaal wuxuu ku furan yahay sharci ayuu ku furan yahay marka aan intaas isku soo darno shirkaddu marka waa shirkad sharciyeysan waaye marka waxyaabaha socdo waxaa ka mid ah qof kastoo maanta One Life ah ee jooga 194 waddan caalamka wadamada kala duwan ah sida Europe iyo Asia iyo wadamada Australia Latin America iyo Africa dhammaantood dadkaas waxaa la isku yiraahdaa reer One Life baa la isku dhaxaa waxayna isticmaalaan ama ay ku shaqeeyaan wax loo yaqaano deal shaker usability iyo ayagu ka gadanaya alaabaha deal shakerka ha noqoto badeecooyinka yaryar iyo kuwa waaweyn limit ma laha haddaba marka maxaa laga faa'iidi karaa waxaa laga faa'iidi karaa haddii aad tahay ganacsade haddii aad tahay member ma arkaysaa shirkadda memberka ah waxaa suuragal ku noqon doonta inaad alaabtaada adigoon maaragtay kugu adkeen si fudud inaad meel kasta caalamka wax uga gadan karto adoo ka baaqsan doona lacagaha laga qaadi doona xawaaladaha remittansiga ama exchange-ga boqolkiiba percentage-ka waxaa kaloo ka baaqsan doontaa markaad deal shaker wax ku gadanayso barnaamijka ma arkaysaa exchange-ga lacagaha la sarifayo laftirkooda qarash badan baa dadka uga baxa waad ka baaqsan doontaa waxaa kaloo suuragal ku noqon doonta haddaadan bangi haysan aad joogto kaba soo qaato Soomaaliya ama qaaradda maaragtay qaaradaha ee Afrika waxaa ku suuragali doonta inuu kuu fududeyn doono deal shaker ganacsigaaga iyo alaabahaaga inaad si fudud u iibsan karto meel kasta aad joogto marka deal shaker usability-giisa u socdaa waan usoo noqon doonaa marka waxaa loo baahan waxay tahay qofka meel kasta uu joogo walaalayaal shirkadda sharcigeeda iyo nidaamkeeda inaan ilaalino aad bay muhiim u tahay shirkadda dabcan waxay noo soo sheegtay muddo soo socotay in loo baahan yahay KYC intaan shirkadda suuqa la imaan dadka in la sameeyo KYC laga qaado baasaboorkooda iyo adresskooda meesha ay degan yihiin si loo hubsado qofkaas inuu yahay qof sharciyeysan oo dowlad iyo waddan uu degan yahay la garanayo dabcan dambi la ahayn marka taas waxay keenaysaa in ay noo fududeyso shirkad ahaan shirkadda u fududeyso One Life in bangiyada iyo dowladaha ay la macaamilayso ayna ka dhadhicinayso shirkadda visionkeeda oo ah in dadka loo abuuro dhaqaale iyo ganacsi technology ama digital ah waxay fududeyn doontaa in dadkii iyo dowladihii kalsooni ka hesho shirkadda maadaama ay shirkaddu ku shaqeynayso dad maaragtay lahayo baasaboorkooda iyo adresskooda waa systemku ku shaqeeyo bangiyada wax la socotaan waa private inta badan marka laga reebo bangiga weyn ee dowladdu leedahay marka dowladuhu hadda G20-ga waxay ka hadleen bishii June dhamaadkeedii 8-29-ka in maaragtay la sameeyo shirkadaha sharciga diyaar ku ah wax loo yaqaan KYC-ga diyaar ku ah in loo sameeyo loo fududeeyo loona sameeyo koox ama dowladda ka mid ah wasiiro iyo baarlamankaba in la sameeyo sharci lagula shaqeyn doono shirkadahaas waddan walba marka waxaa laga sugayaa ama shirkaddu ka soctaa iyo shirkadaha kaloo imaan doonaba in dowladahaas ay soo diyaariyaan wixii loo yaqaan regulation sharciga lagula shaqeyn lahaa dabcan waxaanu leenahay looyaro nala taliya dhinaca shuruucda iyo baaritaan badan ay sameeyeen looyarada nala shaqeynaya waxay soo ogaadeen in shirkadda ay tahay shirkad sharciyeysan iyo shirkadaha kale ee doonaya iyagu laftirkooda inay maraan systemkan KYC-ga marka aad bay muhiim u tahay anagu laftirkeeni walaalayaal inaan fahanno waxaa hebel yiri iyo waxaa la ii sheegay waxaa kaaga fiican inaad wixii soo akhrisato waxaan la soconaa dad badan oo kombiyuutarada wax ka akhristay inay jiraan Google-ka lagu qalday waxaanu la soconaa dad badan oo ma arkaysaa waxa loo sheegay qofka lagu sheegay kaliya maqlaya laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheegno walaalayaal shirkadda haddaad memberka tahay ama account ku leedahay waxaad tahay qof One Life ah waxa laga rabo marka waxay tahay qaybta educationka shirkaddu ay leedahay oo ku sahli doonta su'aalaha aad qabto jawaabtooda inaad hesho inaad samayso Soomaaliya waxaynu ka samayn doonaa insha Allah xafiisyo idin adeegi doona
halkan aynu joogno waa xafiiska lagu yaala Masar oo ka shaqeyno halkan laakiin xafiisyo kale waxaan ku sameyn doonaa Soomaaliya gudaheeda sida ma arkaysa Muqdisho Garowe Hargeysa Kismaayo already xafiiska Kismaayo uu shaqeynaya uu furan yahay Muqdisho hadda way jiraan xafiisyo ku yaala laakiin waxaan sameyn doonaa xafiis center oo ah deal sheekarka ganacsiga ka shaqeyn doona hadii Ilaahay idmo sida Garowe kala dhawaan la furi doono iyo gobolada kale sida Qardho insha Allah oo soo socda waxyaabahaas oo dhan adeegina ama deal sheekarka wadanka gudihiisa ku heli doontaan haddii marka aad u baahataan dibadina wax ka iibsataan kaba soo qaadataan rabto inaad dhul iibsato haddii aad rabto inaad iibsato guri haddii aad rabto inaad iibsato alaabaha badeecooyinka kale ee waxyaabaha la kala gato arkaysa sida dharka cuntada cabitaanada waxaanu ku dadaali doonaa 194 wadan baynu isla shaqeynaa anigu waxaan ahay mas'uulka deal sheekarka Egypt iyo Soomaaliya marka waxay suuragal isin doontaa inaan wadamo kale la xiriiro sida Singapore ama China ama wadamadaas kale liidara ayaa ka shaqeeya shirkadda hoosha ayada wada markii hore laakiin hadda liidara toos uga shaqeynaya jira maadaama anagu marka leenahay wada shaqeyn liidaradaas isku keen karta shirkadda qof walbana wadan uu mas'uul ka yahay anigu gaar ahaan haddaan Egypt iyo Soomaaliya mas'uul ka yahay waxaan ku dadaali doonaa ganacsatada